السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى بعد. waxaa su-aal fara badan walaalo ay soo weydiinayeen isha iyo sida isaga saari lahaayeen isha iyo calaamaadkeeda iyo qofka siduu isaga cilaajin lahay. Haddii marka koowaad horta aan calaamadaha isha ku hormaro, haddii aad leedahay oohin bilaa sabab ah, culays garbaha kaa saaran, margiyada ku xanuunayo, daal fara badan daa'iman joogto ah, garaaca wadnahu aad u garaacmayo, calaamaadkaas iyo kabuubyada jidhka kaa galayso, xanuun jeexa bidix aad ka dareemaysid, in aad ahayd markaad hore qof farxad fara badan dadka dhex gala, laakiin isbeddel haddana kugu yimid oo waxa weeye farxaddii kaa guurtay. Haddii aad calaamadahaas isku aragtid, waa il ayaa jidhkaada ku jirto. waxaad soo qaadanaysaa shay ama weel baad soo qaadanaysaa. weelkaasi waxaad ku shubaysaa 2 qaado oo qasilka ah shiidan iyo 2 qaado oo khalka maaragtay khal tufaaxa loo yaqaano, khalka casaanka ah ayaad ku daraysaa, weelkii ku shubaysaa, kadibna biyaad ku daraysaa. waxaad ku aqrinaysaa suuratu racd ayaad ku tufaysaa 3 jeer, oo suuratu racdi ayaa lagu tufay. haddaadan aqoonin qof yaqaano u dhiibo ha kugu tufo markaad isku dartid oo biyihii aad hal meel isugu keentid. suuratu racdi markaad ku aqriso kadib waxaad dhex fadhiisanaysaa beeshin, macnaha ama waxyaabaha haddii suuliga uu leeyahay meel baaf, waxaan leeyahay meelaha qaarkood kollow oo magaalooyinka qaarkood ama dadka qaarkood waa loo sameeyaa, suuliyaasha noocaas way leeyihiin. haddii uusan suuliga uusan lahayn meel la dhex fadhiisto oo dee lagu qubaysto, haddii uusan lahayn shay weyn ama baaf oo kale aad dhex fadhiisanaysaa, kadibna waxa aad samaynaysaa biyihii ayaad dushiisa ka shubaysaa, biyo badan oo ku daraysaa, halkaasaad dhex fadhinaysaa muddo ilaa nus saac oo kale aad dhex fadhinaysaa. waxaadna aad u aqrinaysaa markaasi maaragtay wixii adkaar ah haddii aad banaanka joogtid weye. laakiin haddaadan banaanka joogin oo suuliga aad ku dhex jirtid oo suuliga aad dhex joogtid, waxaa kugu filan kii aad ku tuftay ayaa kugu filan suuratu racd. isha aad bay u zuulinaysaa, isbeddel badan baad dareemi doontaan biidni illahi albaari. الله ينعم في عافية الله ينسي عدونا، الله يذكر قبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.